sanadkii 1987 diyaarad dagaal oo Ciraaqi ah ayaa si khalad ah u qarxisay markab dagaal oo Mareykanku leeyahay oo lagu magacaabo USS Stark oo ku sugnaa gacanka Faris iyagoo dilay 37 badmaax oo Mareykan ah. Mareykanku ma uusan dooran inuu ka arguto Ciraaq xilligii uu ugu kulaa dagaalkii u dhaxeeyay Iiraan iyo Ciraaq. maraakiibta shidaalka ee ka imanayay Kuwait iyo Sacuudiga ayaa si joogto ah loo weeraray. codsi ka yimid Kuwait awgeed maraakiibta shidaalka waxay ilaalinayeen oo la socday maraakiib dagaal oo Mareykan ah. wax yar kadib markab kale oo Mareykan ah ayaa ku dhacay miino badeed Iiraan leedahay kaas oo dalo 6 mitir ballaciisu yahay ka sameeyay oogada markabka. markan Washington waxay u aqoonsatay arrintan ficil dagaal oo ay Iiraan sameysay waxayna kaga jawaabtay weerar celin. 18 Abriil 1988 ciidamada Mareykanka waxay bilaabeen howlgal iyagoo burburiyay saldhigyo shidaal oo Iiraan ku leedahay badda. hal maalin gudaheed ciidamada badda Iiraan waxay lumiyeen awoodoodii dagaal kadib weeraro cirka iyo badda oo Mareykanku qaaday waxaana lagu qasbay inay ka baxaan gacanka Faris. 3 July markab dagaal oo Mareykanku leeyahay oo lagu magacaabo USS Vincennes ayaa si khalad ah u qarxiyay diyaarad rayid ah oo Iiraan leedahay wuxuuna u maleynayay inay tahay mid dagaal waana uu soo riday iyagoo halkaa ku dilay 290 qof oo rayid ah. toddobaadyo kadib Iiraan waxay aqbashay qaraarka qaramada midoobay ee 598 kaas oo soo afjaray dagaalkii Iiraan iyo Ciraaq. hogaamiyihii Iiraan Ayatollah ayaa go'aankaas ku tilmaamay mid la mid ah cabidda koob sun ah. xeeladaha maanta laga arko marinbiyoodka Hormuz waxa asal ahaan ka soo farcamin khilaafkaas dhacay 1982. ma rabtaa inaad online-ka lacag ka samaysid dhaqaalena ka kasbatid adigoo mobilkaaga isticmaalaya gurigaagana jooga waxaad u baahan tahay 60 xirfadood ugu yaraan 2 kamid ah inaad baratid. haddaba xirfadahaasi waa kuwee? waa AI-da, affiliate marketingka, cryptocurrency, digital productska sida online-ka loogu iibiyo, e-commerce-ga iyo freelancing-ka. haddaba sidee ayaad ku baran karaysaa? waxaa jira buugaag ku qoran luqadda Ingiriishka. haddaba waxaa lagaaga soo koobay buugaagtaasi mid kasta oo ka mid ah xirfadahana waxaa lagugu soo koobay luqadaada Soomaaliga oo waxaad helaysaa buug si tafatiran kuugu sharaxaya AI-da, affiliate-ka iyo xirfadaha kaleba. buugaagtan waxaad ku heli karaysaa iyagoo PDF ah oo e-bookska mid kasta oo ka mid ahna waxaad ku helaysaa $1 oo kaliya. haddaba $1 ayaad xirfadaasi oo dhan ku dhamaysanaysaa oo aad ku baranaysaa sidoo kalena fikrad aad uga helaysaa kunana shaqo tagaysaa. waxaad u baahan tahay kaliya inaad numberkan igala soo xidhiidhid waxaadna 6 buugba ku helaysaa $6 oo kaliya. waxaad ku baran doontaa tooliska muhiimka sida lacag looga sameeyo, farsamooyin iyo tricks qarsoon sida aad uga shaqaysan karto meel kasta adiga oo jooga. dhammaan waxay kugu diyaarsan yihiin iyagoo e-books ah oo PDF ah. mobilkaaga ayaad ku helaysaa isla markaana waad ku shaqo tagaysaa 6daas xirfadood marka aad fahatin sida dadka online-ka uga shaqaystaan. hadda dalbo oo hadda hel numberkaas shashada saaran igala soo xidhiidh.